السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا سو دوادا ولا قالقة مال والبوجوكتين وإذن سلامي وولالكينا إدريسك إيتاواي maanta meeshaan waxaa u soo fariistay in aan wax yar idin sheego. halkan waxaa u soo fariistay in aan maanta wax yar idin sheego, wax oo macnaha idinka aadan ogeyn inaan idin sheego ayaa jeclahay. wax idinka aadan ogeyn markaa dhahayo adiga kunkii qofood hadday u badato boqolaa ka og, 900 ma ogo, balse waxaa rabaa 9kaas boqol oo ogeen in aan macnaha ogeysiiyo Soomaaliya meel kastoo joogto dal iyo dibid walaalaha muslimiinta isoo garab istaagay, garabkaygana maanta soo buuxiyey. idinkana aada u mahadsantihiin. waxaa i dareysiinteen in aa walaalkiina ahay, idinkana aa i jeceshihiin, aa isoo garab istaagteen. waa aad baa macnaha ugu farxay. horta gabadha macnaha iga dhimatay caruurteyda hooyadood, horta alla yaa raxma raaximiin, ilaahay ha u naxariisto, naxariistii jannana allah ha ka waraabiyo, kitaabkeedana midigta allah ha ka siiyo. waa xaaskaygay ahayd, waa qof wanaagsan ay ahayd, caruuray iiga tagtay, caruurtaasna ilaahay ha ila garab galo. ugu yaraan waxaa isoo waceen markii aniga aa qiyaaso 3000 iyo adiga wamaasaada kor u dhaafayaan, oo adiga moobeelada iga soo wacaan, iga tacsiyenayaan. qaar macnaha adiga moobeelka iga tacsiyenayaan, gabadha allah u naxariisato. qaarna macnaha waa isoo garab istaageen. labada meelbo wax siiska ma la isku jeclaado. qofka allah u naxariisto haddii macnaha qofka uu dhaho qalbigay u runtahay. qof walba isoo waco oo gabadhii allah u naxariisto dhaho aada ugu farxayay. anana qalbigaygan macnaha idinkaa ii dejiseen, ilaahay ka sokow. wicitaanka ay soo wacdeen ayaa qalbigeeni oo igu degay. waxaa i dareensiisay inaan walaalkiina ahay, oo mar walba macnaha adiga oo garabkayga aad tihiin. idinkana aada u mahadsan tihiin. dal iyo dibid meel kastoo joogtiin waxaa idin leeyahay cimri dheer iyo cibaado suuban ilaahay ha idin siiyo. marka maanta meeshaan marka waxaa usoo fariistay, waxaa rabaa inaan ka hadlo maka xaaji banaadir hadda kahor wuxuu dhahay ismaan dhaafka adduunka mucjisaadka dhacaya maqaadiirta ilaahay baa. horta aniga geeri waa i gashay, naagna waa iga dhimatay, balse dadka oo social mediaha yacni waxba ma aysan hubsanin, wax ma hubsanin. hubsiima hal geelaa la siistaa la dhahay. maanta waxaa rabaa meeshaan yacni inaan ka caddeeyo dadka aniga igu xiran dal iyo dibid meel kastoo joogaan, in oo macnaha gabadhii social mediaha la wareejinayay oo sawirkeeda ayada iyo aniga macnaha aan videoga youtube-ka ee ila duubtay oo lasoo oo la wareejinayay nuurta caddeey. nuurta caddeey asxaabta ma aysan dhimin. nuurta way nooshahay. nuurta waa xaaskayga, mar walbaan afkayga ka sheegayay, laakiinse ayada ma aysan dhimin, way nooshahay. gabadha kale oo dhimatay waa xaaskayga, hadda idinka sheekeynaa. aniga waxaa lahaayay 2 xaas, 2 xaas ayaa lahaay ani. xaaskan hadda dhimatay waa xaaskii oo bahweynta ahayd waaye, oo caruurta waaweyn ii dhashay. gabadhan bahweynta oo caruurta weyn ii dhashay oo xaaskayga ahayd, allah u naxariisto, waxaa guursaday 2006. 2006 yaa guursaday, ilaa iyo haddeertaan ayaa isla soconay. waxay dhashay 9 caruur.
saddexaa ka geeriyootay alxamdulilah hadda lixay ka tagtay lixaa joogta hadda walaashay nuurta aydana waxaa guursaday 2019 aydana markii la xisaabo waxaa qabaa 4 sano 4taas sano ayadana caruur wuxuu ilaahay siiyey 3 caruur ilaahay siiyey midkii koowaad curudkeeda waa ka dhintay kii labaad macnaa waa ka dhintay kii saddexaad ayay haysataa hadda waa tan idinka hadda aragteen waa maxamed yariisow hooyadiisi waaye maxamed yariisow hooyadiisi waaye marka saasa ogaanaysiin nuurta ma dhimanin way nooshahay aniga markii gabadha xanuunsatay isbitaal u soo qaaday isbitaal xamar hospital keenay hal haweeney meesha ay ku barisay waa u deeriyeen waa anaka xogo waxay dhaheen balbal meel kale geey waa ka soo wadi Red Sea isbitaal keenay isbitaalkii 3 beri ku jirtay maalinta afraad qadarti rabo ayaa ku timid ayadoo iska fiicnaatiyo adiga oo hataa anaga taa nolol fasaxi rabo oo u dhinnaay bas computer oo macnaha adiga wadnaha in macnaha oo la saaro u dhinnaay oo macnaha computerkaas wadnaha la barobay wadnaheedii waxaas la fiiriyo adiga ma qadarti rabo lama celi karo walaashay marka adiga waxa waaye waa iga hormartay meeshaad ilaahay ha u wanaajiyo aninkana waa u duceynaa insha Allah markii geeridaas ay gashay aniga marka iska dawareeg inta ka bood waa karfankan waa wax walbo aniga nuurtu waxay degan tahay tabeelaha gabadhaas kalena waxay degan tahay gubta barwaaqo gurigan hadda telefoonka macnaha aan video aan ka soo duuwayo aniga maanta imaaday gabadha nuurta hooyadeed dad badan soo waceen waxay dhaheen gabadhaadii ma dhimatay waa meel kasta laga soo wacay aniga gabadhayda ma dhiminay dhahday gabadhayda aniga ma dhiminin way nooshahay doodii maamaheed waa soo wacday gabadhaas macnaha bal dadka u cadeey intay iida dhiminin videona ka soo duubay dhahday gabadha nuurta naftirkeeda waa soo wacday aniga social media li wareejinaya inaad dhinta loo haastaa se wax u jiraan waa marka idinkana qaladka ma lihidiin maadaama video wareejiseen qaladka ma lihidiin qofka bini aadanka wixii asiga lagu arko le lagu tilmaamaa aniga waxa igu aragteen nuurto kaliya social media markaas soo galaaye qofka macnaha isoo adiga garab istaagayo adiga social media garab igu siiyey waa nuurto waa videoga madax ariga qofka igala qayb qaadatay iyo video kale hadda YouTube aan macnaha ka soo duubay oo hadda dadka ay wareejinayaan kadib markaa videogaas YouTube ku duubay aniga commentiga la igu soo qoray xaaskaadi social media ka daa aniga qof weyn wax garada ahay commentigaas waa gareystay dad kale oo leef macnaha aan wiji aan iskugu hor imaan aykan way dhahan xaaskaadi social media ka daa haddii aad ka maarmin waxay dhahaan codkeeda waa wadaagi kartaa matalan kaamirada gadaasheeda oo kale codkeeda macnaha waa isticmaali kartaa ayadoon facekeeda macnaha aad kaamirada soo gelinaynin halkaas video waa ka duubay kadib macnaha waa igu dambeysay hadda maanta halkii video waa la wareejinayaa halkii video maalintaas halkaas video haddaan macnaha oo ka duulan YouTube ka dhigi lahayn xaaskayga macnaha adiga waxa waaye waa social media ma la wareejin lahayn gabadhan kale oo hadda dhimatay Allah u naxariisto Anisa laha Anisa Qaasin Abuukar waa caruurta weyn gabadha ay dhashay waaye ayda social media ma ogoleen magaceeda in laga sheego wajigeedana la dhigo sawirkeedana la dhigo ma ogoleen qofka bini aadanka marka adiga wixii asiga dhibaayo waa laga daayaa ama wixii asiga ka codsado
walaalow miyaha aniga social media iga daa aniga wax ma kula duuwaay sawirkaygana ha dhigin tiktok ha dhigin wax walba adiga aa isticmaashid macnaha aniga waa aniga magacayga iyo macnaha sawirkayga oo la wadaaginay dhahday anigana waa aan ka yeelay qofta keliya hadda aa sheegi jiray marka aniga aa ciyaarayo waa nuurtay ahaa jirtay qofta video ila soo duubtiyo macnaha adiga hadda ilaahay ka sokow horumarkan oo social media qofta garabka igu soo siiso waaye marka nuurta ma aysan dhimin way nooshahay gurigiina maanta imaaday videogan idinka idin soo duuwayaa in macnaha xaqiiqda aa ogaatiin caruurteedina way caafimaad qabaan wayna sabreen insha allah ilaahayna ha ila garab galo marka waxaa garaystay nuurtadii ilaa macnaha aan idin tus intay nooshahay kaale nuurta kaale asxaabta nuurta soo dhawow horta walaasheen horta ilaahay ha u naxariisto naxariis jaran allah ka waraabiyo waa waxaa waaye meesha anag dhan ba wada soconaa adi iga horumar aa ka dambeey le waaye nin oo la dhaaf wey ma jiro waa la wada dhimahaa marka asxaabta hal iyo labo salaan si wax u jiraanna u sheeg asxaabta waa nii salaami walaashin nuurta waaye ani mana dhimina waa noolahay ma dhimina ana waa noolaa laakiin joog ada maxaa akhyaar iska dhig waa la war mooyaay wax naagtiis waa ka dhimatay idriska ani ma dhimina waa noolaa naag kaluu qabo idriska waa noolaa ani ma dhimina waa nii salaami garka moo la yaabin yahay hay wat dadka si fiican oo la waran ay dadkeeta macnaha adiga hadal dhanka hadalkii haddii la dhaho ma isku fiicno habeenka sidaa ogtiin macnaha xishood waa xishood badan yihiin joog ada guslo ayow wat oo la waran asxaabi ma dhimina aan waa noolaa laakiin idriska laba xaas dhow aay bahaweentaa dhimatay naagta ilmaha waaweynka u dhashaa dhimatay aan waa noolaa laakiin magaalka dhan waxaa igu jirto nuurta way dhimatay qof kasta wuu isoo wuxuu nuurta ma dhimatay ma dhimina waa noolaa laakiin idriska naag kaluu qabiyaa dhay way ka dhimatay aan waa noolaa dhimina intii dhimatayna ilaa u naxariisto haa ayadana meesheeda uu naajiyo adigana walaashaada ahayd caruurtaada macnaha hooyadooda waaye ilmahaas iyo cunugan adiga aad dhashay waa isla wada dhashteen waa isku aabbo adigana waa walaashaada ahayd marka dad meeshaan macnaha iska cafi iska cafi laba naag oo lisla qabo waxyaalo wax waa ay kala dhexay karaan sida aad dareemi kartiin marka walaasha waaye maanta waxay kaaga baahan tahay daco ay kaaga baahan tahay inaad u ducaysid haa marka iska cafi walaasha waaye jannadii firdaws ilaahay ka waraabiyo qabrigeeda ilaahay waa sax ugu dhigo waxba muu qabi ilaahay meesha tawroonay iidan haa marka asxaabta idinkana saasa ogaanaysiin anigan yacni qof xun yaa la ii arkin qowl cunugan maxamed riiso hooyadiisana waatana maxamed riisowna waa kanaa gabadhan 2019 guursaday alxamdulilah 3 caruura ilaahay iga siiyey balse 2 ka mid ah ilaaha iga jeclaaday midkii saddexaada ilaahay jilbaheeda oo u saaray oo hadeertaan ay ku sabraysaa maxamed riisow ku sabraysaa waa dareemi kartaa macnaha qofka ugu horeeyo oo curudkaada haddii adiga aad dhashid oo kaa geeriyoodo curud labaadkii aad dhashid kaa geeriyoodo haddana aaday macnaha ay ilmaha aaday u jeceshahay kii saddexaad hadeerta ay haysataa waa maxamed riisow gabadhaas kale aa qabi hataa waxay ugu dhahday caruurteeda mid ka mid ah hataa macnaha social mediaha ma dhigi kartid mana oli wadaagi kartid dadka waa aragteen ilmahayga hataa macnaha social media kuma jiraan
qofku wuxuu kaa codsado waa loo sameeyaa waa igu codsatay anina ma sameynin hadda idin la hadlaayo sawirkeeda waa hayaa intana waa soo saari karaa laakiinse waxaa diidaa ilmihii macnaha video way fiirsanayaan hooyadooda sawirkoodii arkayaan taas la aawigeeda macnaha sawirkeedan aan meesha u soo saari karin magaceedana Anisa la dhahaa saas ogaada waa Aniso Qaasim Abuukar la dhahaa sida hore idinku sheegay lixaa joogto hadda lixda hadda ayeeyadooda la joogto waa gabadha dhimatay hooyadeed shubdhe nugan sii wixii oo siiyeysid ayeeyaa la joogto ilmaha intii ana macnaha waxaa waaye karaankayga intaan noolahay insha Allah ilaahay idinkiisi ilmahaas oo ku dadaalaa haddii aniga dhinto waxaa waaye waa nasiibkooday qabaan marka walaalayaalow idinkana waxaa aniga ila habboonaatay videogan aan soo duuwaayo yacni wax laga aamusi kara ma ahan waxaa ahay qof social mediaha adiga joogso wad xaq u dhelsiba qof social mediaha magac kula ahay ilaahay ka suko magacaas idinka ii yeesheen gabadhii daraad oo waa dhimitay dhahay oo videogeed la wareejinayay hadda videogan aniga aan soo duubin gabadhii daraad waa dhimitay dhahay video la wareejinayay haddii meel lagu arki ka waran aniga maxaa naqanaa nin oo beenlow aan naqanaa aniga qoftan way xanuunsan kartaa uuray qaadi kartaa dhalitaanka markii loo baahdo isbitaal la geey karaa qofka haddii isbitaal la geeyo macnaha takhaatiirtii dadkii wixii dhana arkayaan waxaa la dhahaa qoftan nuurtadii ma ahano oo waa dhimitay la dhahay idriso marka beenta maxaa u sheegtay nuurta ma dhimin waa noo shaabe maxay tahay aniga marka waxyaalahaas diidinahay videogan ina ogaatina idinku soo duubi bahbah wadada joogso bas waay baad iska bahbah marka walaalahay aniga waa iska mashquulay waa qof iska murugeysana ahay xumaatan yaa la ii fahmin videogan idinka idin soo duubay inaa macnaha xaqiiqda ogaatiin saasay wax u jiraan Soomaali meel kastoo joogaan waxaa idin codsanaa xaqiiqda saan ayay wax u jiraan hala ogaado ayadana ha loo soo wada duceeyo walaashay marka videogan idinka idin soo duubay xaqiiqda dhabta ee saan waaye waa adiga hubsiiman hal gilaalisi dadka macna waxba ay hubsanin maadaama ay waxna ay hubsanin ayakana qaladka ma lahan aniga waxaa liigu arkay kaliya ina aniga nuurto kaliya liigu arkay qofka dadka adag waxay ku arkaan Idriiska xaaskiisa waa nuurto haddana Idriiska xaaskiisa dhimatay la dhahay nuurta la soo qaatay sawirkeeda marka nuurtadiina waa idin tusay waxaan rajaynayaa dhammaanteena waxaa waaye adiga soonkan ilaahay bashbash iyo barwaaqah Allah nagu gaarsiiyo dambigan iyo dambi waalidkeena Allah caafiyo Soomaali meel kastoo joogtana inta bukun ilaahay ha caafiyo soonkan ilaahay bashbash iyo barwaaq Allah nagu gaarsiiyo inta dhimatana Allah u naxariisto waxaa idinka rajaynayaa sawirtiin meel kastoo joogtiin ilaahayna waxaa ka baryaa inuu qaatimo xumo ilaahay noogu dilin qaatimad Allah noo wanaajiyo marka asxaabay sawir intiin meel kastoo joogtiin gabadhiina macnaha waxa u sameeyay adiga duug waa isoo garab istaagteen waa arkay si wanaagsan loo duugay kaal arag ma lagu ceeboobin duug sharaf leh loo dhigay marka idinkana aad u mahadsantihiin sawirdantiin meel kastoo joogtiin waxaa idin leeyahay nabad diini inoo la kulanta amaano Allah sidaas nabadgeliyo bye bye